بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان واني ودا السلام يا أرضيدا معلمين تا والدين تا يو قصتي الكلام ما أنت وحي نسوتشين دونا برنامج inspiration about motivation oo dhiirigelin oo ka hadlaya qofku aba anigu sideen uga adkaan karaa naftayda. barnaamijkaas aynu soo jeedin doonaa qof kasta waxa uu doonayaa noloshiisa inuu guul ka gaadho, laakiinse markasta waxaa hor jooga caqabadaas oo naftiisa isaga. markaasee naftayda anigu aan uga adkaan karaa. qof kasta oo hadda hortayda soo fadhiya waxaa jira shay uu niyadiisa ku hayo right now, awna siinaya priority-ga aw rabana inuu sameeyo, laakiinse ay waxyaabo kale ka mashquulinayaan. seen waxyaabahaas aan ugu guuleysan karaa ama naftayda aan ugu guuleysan karaa? haddii qof kasta oo la noolaan lahaa shayga u priority-ga daqiiqad kasta oo noloshiisa soo marta, waxa hadda waqtigan aan joogno halkan maynaan wada joogneyn. haddii qof kasta uu samayn lahaa taas, qof kasta waxa uu noqon lahaa qof hamigiisu uu sareeyo kana guul gaaro waxyaabaha uu rabo inuu sameeyo. qofka haddii uu jecel yahay aqoonta heer inuu ka gaari lahaa, ka lacag jecel ee doonaya inuu milyaneer noqdo, inuu milyaneer ka gaari lahaa. qof kasta meesha uu hiigsanaya inuu gaari lahaa, laakiin fact reality markaynu ka hadalno ma gaadho. qofku arrintaa ma sameeyo. waxyaabaha waxaad kugu sababi karaa baa caqabada kugu noqon kara ee kugu keenayana waxa noqon kara adiga naftaada ayaa caqabad kugu noqon karta oo kuu diidaysa waxyaabaha heerkaas inaad gaadho. waxa kugu noqon kara deegaankaaga, kugu noqon kara dhaqaalaha, kugu noqon kara waxa kale oo kugu noqon kara qaabka ay naftaada adiga u fikirayso ambaas adiga aad u fikirto ayaa kugu noqon kara. laakiin taas waxaan doonayaa inaan dul istaagno oon aad iskula eegno waxa ku dantaa marka aad raacdo eed ku mitido eed qabato, waxa aad noqonaysaa iftiin lugaynaya. markaas iftiinkaasi ma aha iftiiminaya dadka noloshooda oo madow, laakiinse marka aad raacdo adiga waxa ku danta adiga laftigaaga ayaa noqonaya iftiin. you are light. haddii aad u fiirsato dadka hibada marka ay qabanayaan shayga abaa waxa ay hibada u leeyihiin wax ka qurux badan ma jiro. markaad aragto dadkaas marka ay qabanayaan shaqada, waxaad arkaysaa iyagoo qaabka ay u qabanayaan ku raaxaysan. marka adiga reflectionka ay ku siinayaan ambaasa xasuusinta markaad ku soo dhacaysa ama effectka ay kugu yeelaan waxaad ogaanaysaa inay adigana jiraan waxyaabo aad ku raaxaysan karto ood sidaas oo kale aad u samayn karto amba kartidaas oo kale aad u leedahay inay jiraan baad ogaanaysaa. la soco dadka aan isku kalsoonin waxay markasta ka xanaaqaan dadka isku kalsoon. marka ay ku arkaan adiga oo si kalsooniya wax u qabano, waxaad ka xanaajin doontaa dad fara badan, laakiin ma aha inaad u joogsato. haddii aad rabtid inaad noloshaada heer ka gaadhid, naftaadana aad ka adkaatid shayga hadda qalbigaaga ku jira eed rabtid inaad qabato, just do it right now. qabo